بسم الله الحمد لله السلام عليكم أصحاب channelkayga ku xiran oo markale walaashin Saara Cooking Channel iyo muuqaal cusub ما شاء الله maantan waxaan idin wadaa khubus aad u macaan maraq iyo samaki ama kalluun ما شاء الله qaabkaas quruxda badan ugu dambeyn ku soo baxay waxaan rajeynayaa inaad ka wada faa'iidi doontaan insha Allah cidii taqaana way taqaana Ilaahay u barakeeyo cidii aan aqoonin soo dhawaada ka faa'iideysi wanaagsan waxyaabihi aan ka diyaariyay iyo qaabkii aan u diyaariyay halkan waxaa ku heesaa sida arkaysaan baaquli waxaan ku soo shubaa 2 bakeeri oo bur ah qiyaastii waa nus kiilo inta kugu filan qiyaasta aad taqaanid ma sha Allah 2 koob ayaan ku shubay sida wada arkaysaan burkeena caadiga kadib waxaan sameynayaa qamiirisada ama istida hal qaando ayaan waxaan ku soo shubayaa bakeeri waxaan ku soo darayaa caano qandacan ama caano diiran qiyaastii hal bakeeri wax yar dhiman ah sida wada arkaysaan intaas ayaan isku soo daboolayaa insha Allah 10 daqiiqo markii ay noo daboolnaadaan ayaan isku soo laabanayna insha Allah bacdaas ayaan afka ugu soo xirayaa insha Allah markii 10 daqiiqo kadib ayaan isku soo laabanayna haye burkii hadan waxaan ku soo darayaa sida wada aragtaan oo baaquliga aan ku soo shubay 2 qaando sonkor ah waxaan kaloo ku soo darayaa waxyaro cusba qaandada foodeeda sida wada aragtaan waxaan kaloo ku soo darayaa hal xabo ukun ah intaas ayaan isdhex marinayaa wax yar kadib waxaan ku soo darayaa insha Allah xaanihi iyo fixisadii noo daboolneed oo aan hore iskugu soo dhex daray 10 daqiiqo kadib ayadana waa diyaar ma sha Allah hadda waxaan ku soo dhex darayaa burkii markii aan isku qasay kadib markaan intaas ku daro kadib wax yar ayaan isdhex marinaa insha Allah burkii waxyaabihi aan ku dardaray waxaa kaloo ku soo darayaa baking powder wax yar qaandada foodeedaasna aan amaan badnayn halfkii biyaha diirana ayaan ku soo daray ما شاء الله intaas ayaan isku soo qasayaa wax kale ma ku soo daraayay hadii adiga oo ka adkaada ama ka jilco waa ku soo darsan kartaa insha Allah hadii oo ka jilcan bur ayaa ku soo darsan kartaa hadii oo ka adkaadana biyaha diiran ayaa ku soo qasan kartaa laakiin waa isku qiyaasta aniga ma sha Allah qaabkaas ayaan u soo xashay si fiican ayaan isku dhaxgalay sida wada arkaysaan hadana baaquliga ayaan ku soo ridayaa waan soo daboolayaa insha Allah ilaa uu nooga soo fiixo ama uu ka soo qamiiro kadib bacda cuntada ayaan afka ugu soo daboolayaa insha Allah qaabkaas ayuu diyaar ku yahay asxaabay sida wada arkaysaan waa dhigaa insha Allah in ilaa uu nooga soo qamiiro haddana waxaan soo diyaarsanayaa maraqii waxyaabihi aan ka diyaarin lahaa insha Allah halkan waxaa ku haystaa hal xab maraq digaag ah sida wada arkaysaan baradho 4 xabo bocor cadde jab hal xab weyn ayuu ahaa sukiini 3 xabo barbarooni 3 nooc ayaan isticmaalayaa yellow red na green barbarooniga waa 3 nooc jab ayaan ka isticmaali doonaa iyo hal xabo karood ah waxaa kaloo saxankan ku haystaa kabsar paprika toon aan soo tumay iyo fish masala
halkan waxaa kaloo ku heystaa 2 xabo kalluun ah ama samaki. haddana waan soo jarjaraa insha Allah isku soo laabanayna. saxaabay sidaa wada aragtaan oo alaabtii oo dhan waa soo jarjaray saddexdii barbarooni kala nooca ahaa iyo basashii iyo mirdiyagii hal saxan ayaan soo saaray. sukiinigii bocorkii kaaroodkii iyo baradhadiina sidoo kale waan soo jarjaray hal saxan maasha Allah sidaa wada arkaysaan. saxan kalena waxaa iigu jira carfiska kalluunka. haddana insha Allah waxaan bilaabayaa inaan soo karin insha Allah. digsiga ayaan dabka soo saaray. saliid yar ayaan kusoo shubay basashii noo diyaarsan ayaan kusoo daray. qaabkaas arkaysaan basasha markii wax yar ay noo saarnaatay insha Allah waxaan kusoo darayaa sidaa wada aragtaan bocorkii hore inoogu diyaarsanaa iyo sukiinigii. qaabkaas ayaan kusoo wadaa insha Allah waan isku soo dardarayaa. waa bocorkii iyo sukiinigii sidaa wada aragtaan maasha Allah. marka hore ayaga ayaan kusoo darayaa insha Allah. baradhada dib ayaan ugu soo dari doonaa iyo kaaroodka. intaas ayaan isdhex marinayaa insha Allah. waan soo daboolayaa wax yar kadib ayaan isku soo laabanaynaa insha Allah. xoogaa kadib asxaabay markii uu soo daboolnaad maasha Allah wax yar isdhexgaleen sukiinigii bocorkii basashii. waxaan haddana kusoo darayaa sidaa wada aragtaan baradhadii maasha Allah. baradhada ayaan haddana kusoo darayaa asxaabteyda. kadib waxaan kusoo daraa insha Allah xawaashada isku dardarka oo aan guriga ku diyaarsaday. wax yar ayaan kusoo daraa insha Allah. haddii aad rabtid waad iska dayn kartaa wax dhibee ma lahan. waxaan kaloo kusoo darayaa halkii xabo oo maraq digaaga ama jumbo. haddii aadan isticmaalin ama aadan xiiseynin waxaa ku darsan kartaa cusbo joyskaada iska leh. haddii aad si markaa ku darto oo kusii yaraadana cusbo ayaa ku kordhisan kartaa maasha Allah. dhanaanka inta aad xiiseynaysid ama aad rabtid ay ku xiran tahay. intaas ayaan soo dhex marinayaa insha Allah. kadib waxaan kusoo darayaa kaaroodkii hore inoogu diyaarsanaa asne. kaaroodka ayaan haddana kusoo daray sidaa wada aragtaan maasha Allah. qudaartii oo idil ayaa ku dhan digsiga sidaa wada arkaysaan axbaabteyda. biyihii ay ku bislaan lahaayeen ayaan kusoo daray 1 galaas iyo bar qiyaastii. ka badan haddii aad rabtid iyo ka yarba adiga ayay kugu xiran tahay. 1 galaas iyo bar ayaa igu filan. galaaskaas ayaan isticmaalayaa maasha Allah. halkaas galaas iyo bar ayay kulli igu soo bislaanayeen. haddana daboolkiisa ayaan u jiiday maasha Allah. xoogaa markii uu daboolnaaday kadib waa diyaar. qaabkaas ayuu u bislaaday maasha Allah. maraq yar ayaa kusoo haray. haddana waxaan kusoo daray sidaa wada aragtaan saddexdii barbarooni kala nooca ahaa oo isku bedel waa arkaysaan maraqa maasha Allah. wax yar ayaan isku daboolaya dabka waan kasoo damiyey. haddana waxaan diyaarsanayaa carfiskii malaayga insha Allah. alaabtii saxan ku jirto oo dhan waxaan kusoo shubay hal saxan oo weyn. waxaan kusoo daray wax yar oo biyo ah sidaa wada arkaysaan waan isku soo dhex marina isku soo qasaya. markaas kadib ayaan waxaan marinayaa insha Allah samakigii oo aan soo dhaqay qal iyo adduun aan kusoo dhaqo si fiican usoo nadiifiyey. mindi ayaan kusoo jeexjeexay maasha Allah. meelahaas ayaan si fiican uga marinayaa carfiska si uu dhexda ugu galo iyo dhanaanka. qaabkaas ayaan kusoo wadayaa insha Allah. halka xabo ugu horeeya idin tusinaya axbaabteyda insha Allah. kaas ugu qiyaas qaad. kan kalena markii aan soo mariyay kadib ayaan isku soo laabanaynaa insha Allah.
qaabkaas ayaan usoo diyaariyay axbaabtida wada arkaysaan labadii xabo kalluunkeeda ama samaakigii waan soo mariyay carfiskii oo dhan si fiican ayaan usoo mariyay maasha allah tabaarakallah. haddana saliidda ayaa dabka ii saaran waa iisoo kululaatay waxaan bilaabayaa dubistii si wacan ila socda insha allah. saxaabay sidaa wada arkaysaan saliiddii waa iisoo kululaatay dabka dab hoose waa zaa'id ma ahan maasha allah saliidda way soo kululaatay. haddana waxaan bilaabay inaan kusoo rido samaakigii qaabkaas arkaysaan ayuu noogu soo karaya maasha allah. dhanka kale ayaan u gadiyay maasha allah tabaarakallah. samaakiga saasuu diyaar ku yahay waan soo bixinaya insha allah. haddana waxaan aadinaa cajiinkii xaggiisa. cajiinkeena qaabkaas ayuu usoo qamiray maasha allah tabaarakallah sidii aan rabay uu noqday maasha allah. haddana naqaska ayaan ka saaray waan soo kuuskuusaa insha allah. gabalo yarin ayaan usoo jiraa kuuskuus isla eg markii aan soo dhamay ayaan isku soo laabanayna insha allah. xawaysaa wada arkaysaan qaabkaas ayaan usoo kuuskuusay maasha allah. haddana waan soo fidinayaa biidnillah sida ceeshka camal ee loo fidinayaa khubuska laakiin ceeshka wuxuu kaga duwan yahay wax saliid ama lagu dubaa insha allah. waad ila wada arki doontaan insha allah asxaabteyda. qaabkaas ayaan usoo fidinayaa maasha allah. xabad ugu horeyso ama labada xab ugu horeyso ayaa idin tusinayaa dubista iyo fidista insha allah. burfuus qof kasta ayaa garanaya. haddana birta ayaan dabka soo saartay ay soo kululaatay. marwab dabkan wax ku sameeyaan waa dab hoose waxyaabaha la dubaa cajiinadii waxaas. haddana dhanka kale ayaan usoo gedinaya insha allah. qaabkaas ayuu hoos ka noqday saas ayuu u kala baxay maasha allah tabaarakallah. kal iyo laabka hadal ma lahan asxaabteyda inuu bislaado waa arkaysaa. indhihiin ayaa idin macallin ah. qaabkaas quruxda badan ayuu khubuskani maanta kusoo baxay maasha allah. inay ka faa'iidi doontaan ayaan rajeynaya insha allah. xabada kuwaad waatan waxaa kaloo haddana labada dhinac waa arkaysaan axbaabteyda. haddana waxaa idin tusinaya xabadii labaad qaabkay u kala baxaysa waa arkaysaan maasha allah tabaarakallah. qaabkaas ayaan kusoo dhameynayaa axbaabteeda maasha allah. idinku filan labadaas xabo inuu diyaar yahay oo biseel yahay shaki kuma jiro. gaduudka indhihiin ayaa idiin macalina soo tijaabiya idinkane. saxanka markii aan kusoo diyaariyay alaabtii oo dhan ayaan isku soo laabanaynaa insha allah. ugu dambeyn qaabkaas ayay kusoo baxday cashadeeni quruxda badneed maanta. khubus iyo kalluun iyo maraqiisa maasha allah tabaarakallah. dadkaan hilibka xiiseynin waa casho fudud aad u macaan. waxaan rajeynayaa inaad ka wada heli doontaan insha allah. idinkana soo tijaabiya. ciddii taqaana ilaahay u ziyaadiy ciddii aan aqoonin welcome. haddii aad janalka ku cusub tahay please subscribe. haddii aa hore inoola joogto like asxaabtaada iyo heladaada usii sheer garee. waad ku mahadsantihiin daawashada muuqaalkan. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.